بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada taariikh kooban oo aynu kaga hadli doono haddii Ilaahay ogolaado hogaamiyihii lagu magacaabi jiray Haaruun ar-Rashiid Allah u naxariistay wuxuu ku dhashay gobolka Ray oo maanta ku yaala dhulka ay ka taliso dawladda Iiraan sanadii 149 Hijriyada kuna beegan 766 miilaadi xilliga uu dhashay waxa talada hayay awowgii Abu Jacfar al-Mansuur dhaxsugan waxa ahaa adeerkii aabihii ka weynaa kadib markii uu geeriyooday Jacfar bin Mansuur mahdina dhaxsugaha laga dhigay waxa ay u soo wareegeen dhanka caasimadii Baghdad halkaas buuna ku barbaaray hadaba Abu Jacfar Haaruun ar-Rashiid bin Mahdi bin Mansuur wuxuu ahaa hogaamiyihii shanaad ee dawladda Cabbaasiyiinta wuxuu ahaa hogaamiyihii ugu magaca weynaa uguna saameynta badnaa khulafadii soo maray talada dawladda Cabbaasiyada oo 5 qarni muddo ka badan dhisnayd isaga oo bari iyo galbeedba magaciisu gaadhay oo ay reer galbeedku ka qoreen buugaag iyaga oo u yaqaanay Aaron Shiinaha iyo Jabaankuna waxa u yaqaaneen Aalon iyaga oo la lahaa xiriir ganacsi halka qaaradda Yurubna dawladda kamid ah xiriir wax islaafsila lahaa mar ayuu hadiyad ugu diray qaar boqoradooda kamid ah saacad biyo ku shaqeynaysa oo ay muslimiintu farsameeyeen intay la yaabeen ayaa wadaadada Kirishtaanka ahaa oo aan aqoon u lahayn cilmiga dabiiciga ah ama cilmiga sayniska ah ayaa waxa ay yiraahdeen shaydaan baa ku dhex jira markii la jabiyay ee gudaheeda la fiiriyay waxba waa laga waayay Haaruun wuxuu ku soo koray nolol degan oo xasiloon aabihii iyo awowgii oo talada wada haya oo isku xiga ayuu ku hoos koray isaga oo la soo koray amiiradii Cabbaasiyiinta iyo ubadkoodii iyo walaalihiisii ay naaska wada nuugeen ee reer Barmaki waa Jacfar iyo Fadli oo Yaxya bin Khalid bin Barmaki u dhalay qoyskaas oo ay muddo isku labnaayeen garab iyo gacal isku ahaayeen intii aan gadaal laga culoobin Haaruun ar-Rashiid waxa uu lahaa culimo badan oo ku soo aabiyay diinteena macaan islaamka waxa kamid ah culimadii wax bartay caalimkii luqada Carabida iyo naxwaha Ali bin Hamza bin Abdullah oo reer Asad ahaa deegaan ahaana ahaa reer Kuufa xagga idbintiisana waxa loo xil saaray oo rabeeyay waxna baray maalimkii la oran jiray Mufaddal Adabi dhanka dagaalka iyo xeeladeyntana markii uu awowgii geeriyooday 158 Hijriyada ee aabihii xilka dawladda ku soo wareegtay loona caleema saaray hogaanka ummadda aabihii wuxuu bilaabay in uu wiilkiisa Haaruun oo firfircooni dheeraad lahaa tababaro badan siiyo oo uu diyaariyo inuu bari noqdo hogaamiye karti leh oo ummadda muslimiinta inuu hogaamiyo u qalma waxa la baray isaga oo yar sida fardaha loo fuulo sida gamuunada iyo gantaalada loo gano sida fardaha dushooda loogu dagaalamo iyo dhammaan xeeladaha kala duwan ee dagaalka markii uu qaangaadhay wuxuu aabihii abaanduule uga dhigay ciidan lixaad leh oo ku duulay dhinaca Roomaanka sanadii 163 iyadoo ay la socdeen abaanduulayaal badan oo la shaqeynayay waxa ay gudaha u galeen dhulkii Roomaanka iyaga oo dhul ballaaran cagta soo mariyay wuxuu qabsaday qalcadii Samaalo oo markay 38 maalmood go'doon ku jirtay isdhiibtay wuxuuna howlgalkaasi ku muujiyay karti iyo hoggaan wanaag loo qiray hadaba xilka waxa isaga ugu horeeyay walaalkiisii ay isku hooyada ahaayeen oo laga magacaabi jiray Muuse Haadi markii uu walaalkii geeriyooday ayuu xilka qabtay isagoo ay da'diisu ahayd 22 sano wuxuu la wareegay dawlad aad u ballaaran oo dhul weyn ku baahsan laga bilaabo bartamaha shishe ee Aasiyada bari ilaa badweynta Atlantikada galbeed wadanka baaxadaasi leeg ayuu taladiisa la wareegay oo u baahan hogaamiye karti aqoon iyo garasho fiican isku darsaday oo shulkaanta u qabta oo isku wada ummadda intaasi leeg ee kala isirka duwan oo ay diinta islaamka iyo dawladnimadu kulmisay dad badan oo diime kala haystana ay ku hoos noolaayeen Haaruun ar-Rashiid intii uu hogaanka hayay wuxuu galay dagaalo badan waqtiyada kamida ay Roomaanku jabiyeen heshiis ay boqoradii hore ee muslimiintu la galeen boqor cusub oo taladii la wareegay ayaa diiday inuu soo diro waxyaalihii ay boqorka muslimiinta kula heshiiyeen oo jizyada ahayd boqor Naqfuur markii talada uu la wareegay oo awoodiisa buuxda gacanta ugu dhigay ayuu dhabaalkan Haaruun ar-Rashiid u soo diray ka socota Naqfuur boqorka Roomaanka ku socota Haaruun ar-Rashiid boqorka Carabta intaasi kadib boqoradii iga horeysay ayaa ka dhigtay caamaaday iyadoo shimbir iska dhigtay markaasay hantideedii ku soo xambaartay doonu kuma ahayn inay xoolo ku soo rarto ee niweelkii haweenka ayaa helay iyo kasxumadeeda sidaas daradeed markaad dhambaalkayga akhrisid waa inaad hantidaasi dib noogu soo celisaa oo naftaada ku soo furataa inta aan waxaaga laga qaadin haddii aadan yeelina seefayno dhex ah adiga iyo anigaba Haaruun markii uu dhambaalkii akhriyay bay cadhadii aad uga badatay raggii la fadhiyayna waaba eegi kari waayeen ra'iisul wasaarihiisina hadalkiiba ku xidhmay
oo wax talo ah waa ku biirin kari waayey. markaasuu haaruun keligii go'aan qaatay. intuu khad dalbaday buu hadalkan kooban warqad ku qoray: ku bilaabid magaca Alleh, naxariistaaga naxariista badan. ka socota haaruun amiirka mu'miniinta, ku socota naqfuur eyga Roomaanka, kii ay gaaladu dhashayow, dhambaalkaagii waan akhriyey, jawaabtuna indhahaaga ayaad ku arki doontaa adigoon maqal nabaday. haaruun maalintiiba waa uu duulay, wuxuuna howlgal ka bilaabay ilinka Hiriqle, isaga oo furtay meel kastana cagta ayuu mariyey. markii uu dhul badan furtay oo cagta wada mariyey, ayuu ninkii naqfuur ahaa salka dhulka ku dhuftay, isaga oo dalbaday in dagaalka laga joojiyo, isaguna uu diyaar u yahay hanti jizye ah oo uu ku walba muslimiinta siinayo. markii uu haaruun ka soo laabtay duulaankaas, ayuu naqfuur mar kale axdigii ka baxay, maxaa yeelay waxaa la gaadhay xilligii uu Yurub ka soo dhici jiray barafka xoogga leh. markaasay raggii gabayada yaqaanay ee haaruun la socday gabayo badan oo ceebayn ah u tiriyeen boqorkii Roomaanka, iyagoo ku caayay. markii uu libaaxii soo aaday inuu isdhiibay, markii uu godkiisa ku laabtayna uu axdigii ka baxay. sidaas daraaddeed uu yahay fulay axdilaawo ah, lagana dambeeyo oo aan sidaas looga hadhi doonin. runtii maaha taariikhda hogaamiyahan mid aan halkan ku soo koobi karno, kaga warrami karnana hal muuqaal. haaruun ar-rashiid xaasaskiisa waxaa ka mid ahaa Subayda oo ahayd inadeertii, ummatul casiis, Muxamed iyo kuwo kale. haddaba carruurtiisu aad ayay u badnaayeen, iyadoo ay ahaayeen 10 wiil iyo 13 gabdhood. ugu dambayn, haaruun ar-rashiid wuxuu adduunka ka tegay taariikh iyo magac weyn. xilligiisana dowladda islaamka awood ayay yeelatay, dhaqaalaheeduna wuxuu gaadhay meeshii ugu sarraysay. xilligii isaga iyo wiilkiisii Ma'muun ayaa lagu magacaabaa xilligii dahabiga ee Cabbaasiyiinta soo martay, iyadoo ay muslimiintu gaadheen daafaha dunida. haaruun wax badan buu ummadda muslimiinta u qabtay oo halgan dheer buu u galay. wuxuu ahaa duula safka hore ka gala markii cadow culus la soo sheego, marka kalena xajka ayuu aadi jiray. qisadiisu waxay birbilow iyo bardhammaadba rajo gelinaysaa dhalinta u hanqaltaagaysa inay noqdaan hogaamiyayaal. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannada geeyo una naxariisto.